deegaanka Daarusalaam oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada ay ka baxday ciibta isla markaasina ay dadku intifaacsadaan iyaduna ay geedkaasi cunto gudoomiyaha gobolka Mudug ee dawladda Puntland Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo dhawaan howlo shaqo u tagay deegaankaasi ayaa waxa uu amaanay dadka deegaankaasi sida uu ilaaliyeen dhirtaasi in aan la jarin waxa kale uu sheegay inay ciibtu tahay mid la intifaacsado kaydna u noqon karta dadka nafaqana ay ku jirto haddaba waa kana gudoomiyaha gobolka Mudug oo arrimahaasi ka hadlaya calafnimo u diido cunu waaye mooye ciideen waa hodan waxaan ku suganahay maanta beesha Daarusalaam oo hodan ku ah geedka loo yaqaan ciibta geedkaas oo ah sahayda ugu qaalisan ama cuntada ugu nafaqada badan mid la kaydsado iyo mid la cunaba deegaankan wuxuu ku amaanan yahay geedkan oo la xanaaneeyay oo la ilaaliyay nolosheenu maanta waxay ku dhisan tahay dunyaduna waxay ku nooshahay deegaanka haddaan la ilaalin noolaan mayno geedahan waa geedka hodanka ah Ilaahay Soomaalida kaliya ugu deeqay gaar ahaan deegaankan kaliya ugu deeqay wax walbana dadka ka deeqi kara sharaab iyo cunto iyo kayd iyo nafaqo iyo wax walba waa nimco uu kaliya Ilaahayna ku gaar yeelay waxay mudan tahay in la ilaaliyo inta ilaalisay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin inta dambana in la ilaaliyo geedka yarka oo aad arkaysaan ayaa waxa laga gurayaa waxaana weeye runtii waa nimco Ilaahay ina siiyay oo aad iyo aad u qaaliya in la xanaaneeyo oo lagu dadaalo oo la ilaaliyana ay mudan tahay xilliyada ay soo baxday ciibta ayaa deegaano badan oo ku yaala dalka Soomaaliya loo iibgeeyay ayadoona dadku ay si aad u jecel yihiin Shiina Cabdi Axmed Kalsan TV dalka